wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta waxa ay booqdeen xarunta weyn ee shirkadda caalamiga ah ee Turkish Airlines ee magaalada Istanbul. halka markay tageen waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadaasi Turkish Airlines. ugu horeyntiina waxay ka wada hadleen ahmiyadda ballaaran ee shirkadaasi iyo Somali Airlines oo dib loo soo celinayo. wasiirka Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo ugu horeyntiiba ka hadlay waxa uu yiri farkan aniga iyo wafdiga ila socda aan ku imaanay dalka Turkiga wuxuu ahaa laba qaybood ayuu qaybsanaa. mid wuxuu ahaa Turkish Airlines ayaan u nimid 3 maalmood la joogayna haddii Ilaahay ka raali noqdo. 3 maalmood waxaan ka baranaynay sida ay u dhisan tahay Turkish Airlines, sida loo soo dhisay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay, si innagana haddii Ilaahay ka raali noqdo aan u dhisno Somali Airlines oo muddo dheer raagta oo successful noqota oo waarta sida Turkish Airlines oo kale. sida awgeed waxyaabihii khaladaadka ay soo mareen iyo dhibaatooyinka ay soo mareen ayaan ka baranaynay. waxaan kaloo ka baranaynay sharciyadooda iyo qaybaha kala duwan ay leeyihiin. waxyaabahan ka wada hadalnay ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa sida structure-ka uu u dhisan yahay Turkish Airlines iyo academy-yada ay leeyihiin tababarada meelaha lagu bixiyo. maanta waxaan ka soo dhamaanay flight academy kaliya ayaa inoo haray aviation academy ee hadda ka nimid. na tusayeen koorsooyinka ay bixiyaan iyo duration-kooda iyo inta si ahmiyadda ay leedahay. waxaan rajaynaynaa meelahaas inay noqon doonto meelaha dadka ka shaqeyn doona Somali Airlines loogu tababaro haddii Ilaahay ka raali noqdo. CEO-ga shirkadda si wanaagsan inoo soo dhaweeyay saaka ayaan waqti dheer isla qaadanay inagoo ka wada hadalnay dhisitaanka Somali Airlines iyo gacanta ay ka geysan doonaan haddii Ilaahay ka raali noqdo. sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay duuliye sare Aidarus Ahmed oo isagu ka hadlay taariikhdii shirkaddii caanka ahayd ee Somali Airlines ee xilligii dawladdii General Maxamed Siyaad Barre ee dalka Soomaaliya. waxaan u sheegay in ay tahay wax lagu farxo inay mar labaad soo noqoto shirkadaasi Somali Airlines. wuxuu ka hadlay duulimaadyadii faraha badnaa ee dalka ka jiri jiray xilligii dawladdii dhexe ee Somali Airlines. isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri Aidarus Ahmed duuliye sare in Somali Airlines dib loo soo celiyo. Somali Airlines soo celinteeda ahmiyad weyn ayay u leedahay qaranka Soomaaliyeed. waa midda koowaad. ahmiyadda ugu horeysa waxa weeye Somali Airlines waxay wadataa astaanta qaranka. astaanta qaranka ay wadataa oo ay adduunyada dacleeda meel kasta la tegayso. dawladdii ugu horeeyay madaxweynaha hadda waxay isticmaalaan diyaarado kale, laakiin waxay isticmaali doonaan insha Allah tacaala mid ka muuqata astaanta qaranka. tan labaad ahmiyadda ay leedahay waxa weeye Somali Airlines waa regulator. waxay regulator u tahay shirkadaha duula ayaa dan ugu jirta waqtigan xaadirka ah oo waxay noqonaysaa in aysan dhuminin suuqa, aysan ka bixinin. guud ahaan markaan soo koobo dawladda Turkiga oo iyadu si weyn diyaaradaheedu ay haatan caalamka u gaareen ayaa waxaa markii ugu horeysay dawladda Turkiga diyaaradihii ugu horeeyay oo ay markaasi hawada u dirto ay ahayd sanadku markuu ahaa 1933. wixii ka dambeeyay haatan oo aynu marayno 2018 ayaa diyaaradaha Turkish Airlines waxay kor u dhaafeen in ka badan 500 oo diyaaradood oo isugu jira Airbus iyo Boeing 707. محمد أويس مدي بغرك مرتمها تي في قرنكا اسطنبول تركيا.